gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka wadani mudane Axmed Muumin Said ayaa boorama xalay waxa uu ugu qayb galay xaflad taageerayaashiisu ay u qabteen mid kamid ah xildhibaanada urur siyaasadeedka wadani ugu tartamaya doorashada golaha deegaanka ee degmadan boorama kaasoo lagu magacaabo Cabdilaahi Ibraahim Faarax waxaana xafladan lagu taageerayay musharaxan ka soo qayb galay taageerayaashiisa oo isugu jiray dhalinyaro haween salaadiin cuqaal waxgarad iyo bulshada qaybaheeda kala ugu horeen xafladan waxaa ka hadlay musharaxa urur siyaasadeedka wadani ugu qayb galaya doorashooyinka golaha deegaanka ee degmadan boorama isla markaana xafladan lagu taageerayo loo qabtay mudane Cabdilaahi Ibraahim Faarax waxa uu ka waramay waxyaabaha uu qaban doono hadii uu ku guuleysto doorashada golaha deegaanka ee degmadan boorama in degmada boorama dadka ku nool ku dadaali doono gudahaan in aad dadaali doontaan waqtiga ololaha inta ka hadhay maalmaha isu soo baxyada iyo maalinta codaynta ee la kala bixi doono inaad iga dhigi doontaan musharax soo baxa xisbiga wadanina aad ka dhigi doontaan xisbi qaran oo guuleysta gudoomiyaha degmadan boorama ee urur siyaasadeedka wadani iyo gudoomiyaha gobolkan ee urur siyaasadeedka oo iyaguna kulankan goobjoog ka ahaa ayaa waxa ay sheegeen in musharaxan xildhibaanimo ee golaha deegaanka degmadan boorama ugu qayb galay urur siyaasadeedkan wadani ay xafladan ku muujiyeen taageerayaashiisa baahida ay u qabaan inuu xilkan qabto isla markaana waxa ay sheegeen inay ku soo dhaweyn doonaan isaga iyo taageerayaashiisa urur siyaasadeedkan wadani qaar kamid ah cuqaashii waxgaradkii salaadiintii iyo qaybihii kala duwanaa ee kulankan lagu taageeraya musharaxan iyaguna goobjooga ka ahaa oo hadallo intii ay socotay munaasabadan ka jeediyeen ayaa marka la isku soo aruuriya hadaladooda waxay ku soo biyo shubanayeen taageero xoogan ay u jeedinayaan musharax Cabdilaahi Ibraahim Faarax oo kamid ah musharaxiinta 12 ah ee urur siyaasadeedka wadani ugu tartamaya doorashada golaha deegaanka ee degmadan boorama gabagabadii kulankan lagu taageeraya musharaxan waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka wadani mudane Axmed Muumin Said waxa uu ka jeediyay hadallo dhiirigelin ah waxaana hadalladiisa kamid ahaa xildhibaankan wuxuu ahaa xildhibaankii ugu horreeyey ee xisbiga wadani laga soo sharxay wuxuu ahaa xildhibaankii ugu horreeyey maalintii aan urur siyaasadeedka wadani ka furnay boorama noogu yimid xafiiska ee musharaxa urur siyaasadeedka wadani waa ururkii laga aasaasay waxaanu ka aasaasay degmada boorama marxaladii aanu soo marnay ama noqoto furashadii xafiisyada tirakoobkii diiwaangelintii intaba awdal wuxuu galay wanku galay waxa maanta inoo hadhay waxa weeye ururka wadani si uu kaga gudbi lahaa ururnimada oo ah codka aad siinaysaan Cabdilaahi Cabdifataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama